kusoo dhawaada falanqeyn iyo odaras la xiriira filimka filo qaybtiisa 98aad baldoos sida noogu muuqato baldoos wuxuu kusoo noqday ama kusoo noqonayaa London oo sidii ujeedaan waxa waaye diyaaradii ayuu hadda soo furay wuxuu u soo socdaa wuxuu kusoo noqday London ayuu dib ugu soo noqday sida ujeedaan hadda wuxuu ka degayaa London Heathrow Airport qorshihii loo diray wuu soo dhameeyay oo ahay in uu maalgelin ku sameeyo lacagtii ayada ahayd la yiri baldoos wuxuu la kulmayaa asxaabtiisii uu dugsiga sare ay wada dhigteen qof walba wuxuu leeyahay waxaad jeceshahay oo rabtid in wadanka ka qabato maalgelin ku kalmay karna sheego qof walba waxbuu sheeganayaa runtii taasi waxa waaye waa qorshaha loo soo diray baldoos in uu ka shaqeeyo oo rag xaq ay u soo direen gaar ahaan Sharif Halaak marka baldoos wuxuu qorayaa dhalinyaradaasi qof waliba waxa uu rabo in la maalgeliyo oo lacag la siiyo si uu wadanka wax uga soo saaro ayagana wuxuu anfaco marka su'aasha meesha taala waxay tahay dhalinyaradan waxba loo ballan qaaday ballanqaadkaas isaga ah intaan la qabanin Sharif Halaak iyo baldoos ma noqon doona mid galo oo dhalinyaradaasi wixii loo ballan qaaday la soo gaarsiiyo oo lacagtii qayb ka mid ah ee wadanka ay soo gasho oo wadanka wax loogu qabto mase intayna soo gaarin ayaa macnaha dhalinyaradaasi baldoos la qaban doona intii waa qaybta ugu muhiimsan run ahaantii waa kulankii ay kulmayaan Baxsan iyo Dr. Cali iyo Maxamed Amiin Baxsan Dr. Cali ayay kuletiga qabanaysa laakiin Maxamed Amiin ayaa ka celinayo sababta Maxamed Amiin iyo Dr. Cali hore ay soo arkeen waan u sheegay sababta ku qasabtay oo annaga dhan naga wada qarsanad oo ahayd Dr. Cali in la handaday oo la yiri haddii aad arrintaas fulin waysid sidaan ka codsano adiga ilmahaada maqan laakiin wuu ku dhiiraday markii dambe gees ayuu noqday oo wuxuu go'aansaday arrintaas in uu dadkiisa la wadaago oo gariiqan garaad iyo dadka dhan uu la wadaago oo xataa u sheego booliiska runtii waxa waaye waana furaha kaliya ee runtii arrintaani u noqon karo jid lagu furo ama lagu soo saaro marka Dr. Cali waxa anaga naga daahnay oo runtii aan ogeyn sababtu uu Baxsan u yiri Baaslaaw kuma dhalin runtii waxay arrin ka weyn daadiye ahayd oo ahayd daadii markii wax kastaba laga xiray oo furayaashii laga qaaday ayaa Dr. Cali waxa loogu yimid handadaad waxaan handaday baldoos marka taa way naga qarsooneed hadda ay noo soo baxday sababta ayaa ku qasabtay Dr. Cali inuu dusha saarto wax kastaba oo isagoo og Baxsan inuu Baaslaaw oo cabsi u cabsanayo isaga iyo ilmihiisa ayuu arrintaasi u galay laakiin markii dambe wuxuu qaatay go'aan geesinimo ah uu qaatay arrintii inuu ka shifo sababtoo wuxuu arkay in arrintii ay isku cakiran tahay oo laba qof oo walaalo ah oo aad u kala geeyay sidoo kale wuxuu sheegi doonaa xalqada soo socota sida aniga aan u maleeyo qaybta soo socota ee 99aad hadduu ilaahay nagu gaarsiiyo inuu sheegi doono xataa hibo inay walaalo yihiin taas xataa wuu sheegi doonaa Dr. Cali oo halkaas marka waxa ka bilaabanayso raadiska hibo ayaa ka bilaabanayo baldoosna wuu soo noqday oo noqoshadiisana runtii waxay noqotay waxaan u arkaa aniga sagaaradii furfurdanka la kulantay ushi la tuuray iyadoo loogu dan lahayn sagaaradii la kulantay oo la yiri dhaga dhirtaan u dhigtay ma aha midaan raadinayo ma aha marka Dr. Cali wuxuu qaatay go'aan geesinimo ayuu qaatay Baxsan Maxamed Amiin ayaa dejinayo sheekadna uu sheekeenaya ninkan wixii ku qasbay waa kana sida loo handaday wixii dhamay Baxsan wixii ayay garaawsatay runtii wayna isdejisay waana u garaawday Dr. Cali dibka haysto markan waxa weydiinaysaa su'aashii ahayd eragaasi macnaha Baaslaaw kuma dhalin Baxsan taas ayaa beerkeeda ku taagan oo ay ka safri laadahay oo markastana ay soo xasuustaa marka laakiin Dr. Cali runtii qaybta ugu dambaysa oo xalqada lagu soo gabagabeeyay markuu yiri Maxamed Amiin iyo Baxsan walaalo ayaa tihiin
runtii waxaan ii soo shiiday shucuurta runtii baxsan iyo maxaamiin ay isku marxabeeyeen markuu yiri walaalaa tihiin anaa gacanteeda idinku baaray taas shaki ma laha baaslaa ida dhalay labadiinna gacantan idinku baaray marka runtii sida ay isku gacan qaadayaan ama isku marxabeynayaan baxsan iyo maxamed aamiin runtii ahayd wax shucuurta iyo dareenka kiciya run ahaantii marka runtii filankani waxa waaye waa filan ujeedo badan leh filo adduunye wax kasta ka filo